ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada xiisaha badan ee aad daawan doontaan waxaa ka mid ah ganacsada Bashiir Raaga Shiraar oo soo saaray hanjabaad culus. Warbixin ku saabsan waxa ay tahay hanjabaadaasi iyo cidda ay ku socoto. dowladda Soomaaliya oo u yeertay safiirkeeda kaga sugan dalka Kenya, Maxamed Axmed Nuur Tarsan, maxay tahay sababta? Macluumaad guud oo ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa. أهل السنة والجماعة وسياسة عجيبة لدي شيء ونحل بدسير رئيس الوزراء حسن علي غيره مدحوين حسن شيخ محمود أو رئيس سياسة مدحوين فرماجي يدولة ديسا مدحوين حاف أو دي مد كم إذا لبا أرين أو كدل بدا مدحوين فرماجة إسلامر كان مد كلا أو قلادي سعيد عبد الله الدني مدحوينها بنتلان أو قاتي قوان لما فلان أو كستاب سن حدودها مامولك بنتلان ورعصب أو كسو قرحي صد أود حيث مدحوين وارئ يوسف أحمد هجر دبقيت رئيس الوزراء حسن علي غيره oo kulamo kale ka wada magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo al-shabaab oo war ka soo saaray qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka ugu doorka roon iminkana u diyaar garooba inaad daawataan warkii oo intaasi ka faahfaahsan. ganacsadaha caanka ah Bashiir Raaga Shiraar sidoo kalena ka tirsan hogaamiye kooxeedyadii dalka ayaa fariin hanjabaad u diray dowladda Kenya. Bashiir Raaga Shiraar oo caan ku ahaa isbahaysiga la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay ku jirto riyo maalmeed laakiin ay ka dhaxli doonto sidoo hadalka u dhigay in ciidanka dowladda Soomaaliya ay ka soo jeestaan magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. wuxuu yiri dadka waxay riyoodaan markii ay hurdaan habeenkii laakiin Kenya waxay riyoonaysaa maalin cad oo barqa ah balse waxa ay ka toosi doontaa marka ay ciidanka Soomaaliyeed ay ka soo jeestaan Nairobi ayuu yiri Bashiir Raaga Shiraar oo ka hadlay damaca dowladda Kenya ay ku aadan biyo badeedka Soomaaliya. dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta mas'uuliyiinta qaranka ee xilalka haya iyo kuwii hore ayuu ka dalbaday in loo midoobo damaca riyo maalmeedka dowladda Kenya oo uu sheegay in halis uu ku yahay Soomaaliya sidoo hadalka u dhigay Bashiir Raaga Shiraar. wuxuu yiri qof kasta oo Soomaali ah waxaan kula talinayaa in xoog iyo fikir wixii uu haayo uu kaga qayb qaato iska celinta dowladda Kenya ayuu mar kale yiri Bashiir Raaga Shiraar oo markii ugu horeysay ka hadlay xiriirka aan wanaagsaneyn ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. dhinaca kale Bashiir Raaga Shiraar ayaa ka hadlay xaaladda Soomaaliya ee dhanka ammaanka iyo siyaasadda isagoo sheegay in ay Soomaaliya ku jirto xaalad soo kabasho ah. waxa uu sheegay Soomaaliya inay ku jirto xaalad soo kabasho dhanka ammaanka iyo siyaasadda wax kastaana labadaasi ay lafdhabar u yihiin. dhaqaale xumo jirta ayuu sidoo kale uu sheegay isagoo xusay in laga bixi doono haddii la samro. hadalkiisa waxa uu kusoo beegmayaa xilli dowladda Kenya ay xiisad adag ay kala dhaxayso dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii Kenya ay muran ay gelisay biyo badeedka Soomaaliya. markaana ahlu sunna xog dheeraada ayaa ka soo baxaya heshiis ay gaareen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo sidoo kale ahlu sunna wal jamaa kuwaas oo lagu qarameynayo ciidanka ahlu sunna ila wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa wararka maanta u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid ahlu sunna ay kaga siyaasad badisay dowladda dhexe isla markaana marka la eego habka loo dhigay uu yahay mid wax walba sidooda ahaan doona balse ahlu sunna ay ku heli doonto dhaqaale badan. heshiiska waxaa la sheegay inuu yahay ahlu sunna wal jamaa in ciidamadeeda iyo hubkeedaba ay haysan doonto balse magac ahaan loo hosgeyn doono dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay mushaar uga hesho. waxaa sidoo kale la isla gartay in taliyayaasha hadda maamula ahlu sunna wal jamaa ay sidooda u sii joogi doonaan laakiin taliyaha guud laga soo magacaabi doono magaalada Muqdisho. taliyaha imaan doona ayaa lagu sheegay in uu noqdo shakhsi caqiidadiisa wanaagsan tahay taasoo micnaheedu yahay inuu noqdo taliye aaminsan caqiidada ahlu sunna wal jamaa xulashadeedana ay qayb ay ku leedahay. sidoo kale xogta aan helayno waxay sheegayaan in ahlu sunna heshiiskan ay gashay iyadoo qorshaheedu uu yahay in ciidamadeeda ku jooga magaca dowladda federaalka ee Soomaaliya si ay dowladda dhexe u bixiso mushaaraadka ciidanka. ahlu sunna ayaa sidoo kale waxay diiday in ciidamada kale ee dowladda federaalka guutada 22aad lagu daro ciidamadeeda. isku soo wada duub waxay u muuqataa in ahlu sunna ay ka ciyaar siyaasadeed badisay ra'iisul wasaare Khayre oo arrimo badan oo dowladda federaalka ee Soomaaliya aan dan u ahayn oo ogolaaday si uu u xaqiijiyo safarkiisii gobolada dhexe inaan lagu qeexin mid fashil ku soo dhamaaday. macluumaadyo kale ayaa inoo soo socda balse markaan aan eegno madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu weeraray madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi dheer uu siiyay idaacadda VOA waxa uu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya.
madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud oo wax laga weydiiyey xiriirka xun ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa marka hore waxauu sheegay in wax xun aan laga rajeyn, balse uu rajeynayo in ay isku soo dhowaadaan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulada, islamarkaana wax kastaa wanaag ay ku socdaan. xasan sheekh wuxuu sheegay in xilligan uu kala shaki uu ka dhexeeyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada, waxaana uu sheegay intaasi xilligan aan loo baahnayn, islamarkaana xal waara laga gaara cabashooyinka kasoo yeeraya maamul goboleedyada dalka ka jira. waxaa kaloo uu sheegay in mas-uuliyadda ugu weyn ay saaran tahay dowladda federaalk ee soomaaliya oo laga rabo inay si wanaagsan ula dhaqanto maamul goboleedyada dalka, balse taasi badelkeeda wuxuu xusay in dowladda dhexe ay ku hayso maamulada faragelin iyo sidoo kale caburin joogto ah. waxaa kaloo uu tilmaamay inaysan dowladda dhexe xaq u lahayn in shacabka iyo maamulada ay ku qasbaan in cid aysan rabin ay doortaan, isaga oo sii raaciyay in dowladda dhexe si qaltan ay u isticmaalayso awoodda dowladda dhexe. waagan isagoo arrimahaasi si kooban kaga hadlaya. wax fiican baa la rajeeyaa. waxaan rajeyneynaa in maamuladaasi ay sii xoogeystaan, siyaasadooduna ay degto, dowladuna doorka ay leedahay inay doorkii dastuurka u tilmaamayey hayday inay fududeyso dowlad goboleedyadaasi dhexdooda shu-uuntooda siday u xalin lahaayeen, doorashooyinka u qabsan lahaayeen, haddii dhibaata jirta dib u heshiisiin u gaari lahaayeen, institutionska hay-adaha dowlad goboleedyadaas sidii loo xooji lahaa. dowladda doorka ay leedahay waa kaas. nidaamka federaalka aan qaadanayna koo tilmaamaya waa kaas. meeshaan saddex waxyaabood oo muhiim ah oo inaan laisku khaldin u baahanaa jirta. amuur waa amuur dowlad goboleedka u gaara oo iyada ay leedahay inay qabsato ay tahay. midna waa mid dowladda dhexe u gaara oo la garanayo dastuurku tilmaamay. midna waa wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeyo oo layska kaalmaysto ay tahay. waxa ugu muhiimsan meesha jira marka waxa waa haddii niyad sami iyo kalsooni ay meesha ka jiri weydo, kalsoonidii ay xumaato, hoos u dhacdo, wada shaqayntuna waa xumaanay. wixii dadka ka dhexeeya lawada qaban karo lama qaban karo. marka aniga hadda waxaan dareemaya waxay tahay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada shakiyaa kala jira. shakigaasi dee in la wada hadlo, maxaan ku raha laysku nuglaado, laysku dhagajal ayay u baahan tahay. marka dowladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dowlad goboleedyadaas garab istaagto oo sida qaanuunka uu qabo oo dastuuradooda ay qabaan oo dadkooda ay qabaanna lagu garab siiyo, laakiin aanan waxna loo yeerin, aanan la jojoogin, dadka qaarkiisna aanan la riixin, kuwa qaarkiisna aanan la soo dhaweynin. yes waa run soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhidhiman iyo waxyaaba khalada waa jiri karaan, laakiin dowladda federaalka waxa lagu haysto oo anaguna aan waxoogaa ku dhaliilno dowlad goboleedyada ku dhiraan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay, kontaroolkeedana wuu badan yahay. markana aan eegno madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa diiday inuu aqbalo codsi kaga yimid madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku aadanaa doorashada dhowaan ka dhaceysa galmudug. xaaf oo muqdisho soo gaaray axadii ayaa wuxuu la kulmay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya, waxaana loo soo bandhigay laba qodob oo mid uu yahay inuusan isku soo sharaxin doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacda galmudug, kan labaadna uu yahay in dowladda soomaaliya uu kala shaqeeyo doorasho ka dhacday deegaanadaas. xogaha aan helin waxay sheegayaan in xaaf uu aqbalay qodobka labaad oo ku aadan la shaqaynta dhanka dowladda ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, balse waxaa la sheegay in lagu gacan seeray madaxweyne farmaajo qodobka labaad oo ah inuusan isu soo sharaxin. sida xogta aan ku helnay madaxweyne xaaf ayaa madaxweynaha dowladda federaalk u sheegay in codsigiisa uusan ku aqbalaynin isla kulanka dhexdiisa, balse go-aankiisa oo waqti uu siin doono, islamarkaana si rasmi u shaacin doono waqti dambe. waxaa jira heshiis maaliyaed hore ee ugu ballameen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxweyne xaaf kaas oo ku saabsan in madaxweyne xaaf uu aqbalo doorashada inay dhacdo, waxaana xaaf uu dalbaday fulinta ballanqaadkaasi kahor inta aan loo gudbin qodobada kale. ila xog ogaala ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay in madaxweyne xaaf la filayo in maalmaha soo socda dowladda federaalk ee soomaaliya uu ka helo waxyaabihii ay ku wada heshiiyeen. markana aan eegna macluumaad kale. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu waramayaa inay iibisay dhul danguud oo ku yaala degmada daynil ee gobolka banaadir sida xogta lagu helayo. dhulkan ayaa wuxuu qayb ka yahay isbitaalka xooga dalka, islamarkaana wuxuu ahaa barxad weyn oo dhul danguuda kuna taala dhabarka dambe ee cisbitaalka ilaa bisha cas. sida la sheegayna waxaa laga iibiyey ganacsato soomaaliyeed. saraakiil ka tirsan ciidanka xooga dalka oo ka degan cisbitaalka ayaa waxay xaqiijiyeen in dhulkan uu muhiim u yahay dowladda, dhowaana laga iibiyey dad ganacsato ah. waxaana arrintan ka shaqeeyay maamulka degmada daynil sida xogaha lagu helayo. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dad badan u xirtay fale la xiriira musuq maasuq, islamarkaana waxay amar ku bixisay in la soo celiyo hantida guud oo horey
dad badan ay u deganaayeen. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya iibisay dhulka barxadda ah oo ku yaala dhabarka dambe ee cisbitaalka Xoogga, islamarkaana ku eg ilaa xarunta Bisha Cas agagaarka cisbitaalka. arrintan waxay qayb ka tahay sida la sheegay qorshe la doonayo in halkaasi dib u dhis lagu sameeyo, lamana oga ganacsatada laga iibiyey halkaasi waxyaabaha ay ku sameyn doonaan. macluumaadkaasi waxyaabaha kasoo kordha waan kula wadaagi doonaa insha allah. balse markaan aan eegno go-aanka madaxweyne Dani. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo khudbad ka jeedinayay munaasabada 1 Luulyo ayaa waxa uu sheegay in wadahadal uu la galayo Somaliland oo khilaaf xuduudeed uu kala dhaxeeyo Puntland haddii dhankooda laga helo. madaxweynaha waxa uu sheegay in Puntland ay wadahadal ay diyaar u tahay cid kasta oo Soomaaliyeed, haddii ay koonfur ahaan lahayd iyo haddii ay waqooyi ahaan lahaydba, si loo dhameeyo buu yiri khilaafaadka jira. ay dadka ay kala dhaxayso ay la wada hadlaan, hadday tahay waqooyi iyo hadday tahay koonfur iyo galbeed iyo hadday tahay bari, intaba cid kasta oo diyaar waa in lala hadlo, diyaar baan unahay inaan la hadalno. waxaan ilaahay uga rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dowlad midnimo leh. markaan saan leeyahay goodin ma aha, markaan saan leeyahay ma aha inaan leenahay tanaasuli mayno, markaan saan leeyahay waxa weeye daawaan wadnaa. diyaar baan u nahay dowlad Soomaaliyeed, diyaar baan u nahay inaan kaalinteena ka qaadano. waxaan markhaanti ka tihiin dowladda Puntland tabarteedii, ciidankeedii, hantideedii inay diyaar ula noqoto in magaalo madaxda Muqdisho calankeedii laga dul farfariyo madaxtooyadii Soomaaliya oo ilaa maanta shaqaynaysa. aamino oo wasiiradaas ka mid ahayd, xildhibaanadaas ka mid ahayd, runtii aad baan uga mahadcelinayaa inay maanta joogto. markana aan eegna Hiiraan. weli waxaa taagan xiisada ka dhalatay xilka qaadistii oo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu ku sameeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. hase yeeshee waxaa arrintaasi weli kasoo horjeeda xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiye Dabageed. xubno ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isugu jiray xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan labada dhinac iyo sidoo kale xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ku guda jira xalinta xiisadaas, waxaana dhowaan ay ku fashilmeen wadahadaladaasi kadib kulamo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi ka socday. wasiir ku-xigeenka beeraha ee Hirshabelle xildhibaan Maxamed Bashiir Qaasim Dakhare iyo xildhibaan Cabdiwaxiid Axmed Cumar wadaadyara oo shir jaleed ku qabtay magaaladaasi ayaa waxay sheegeen in ku dhawaad 20 maalin kadib aana wax natiijo ah laga gaarin xalinta xiisada ka dhalatay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiye Waare. waa kan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. muddo 20 maalmood ku dhow waxaan joognaa magaalada Beledweyne. waxyaabihii aan u soo baxnayna waxay ahayd xalka gaarista arrimihii maamul shaqaaqada ka jirtay. waxaa nasiib darro ah in ilaa haatan aan laga gaarin wax natiijo ah. waxaan leeyahay dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, xildhibaanada ka soo jeedo gobolka Hiiraan, sanatoorada, si degdega inay ku soo farageliyaan waxa ka jira Beledweyne. ma aha wax la aqbali karo, maxaa yeelay ummad masiirkeeda waaye. gobolka Hiiraan dad badan ayaa degan, ummad badan ayaa ku nool. waxay u baahan yihiin mustaqbal, waxay u baahan yihiin horumar, waxay u baahan yihiin wax walba. wax la aqbali kara maaha muddo bil iyo bara inay maamulka gobolka Hiiraan xal laga gaari waayo. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baaq u dirayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya, federaalka Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo iyo xildhibaanada ka soo jeedo gobolka Hiiraan ama guud ahaan Hirshabelle iyo sanatoorada inay si degdeg ah ku soo farageliyaan arrintan si xal loogu gaaro. waxay tahay wax loo xalleeyahay waxa weeyaan madaxweynuhu waa qabiil, ninka warqada laga maxaa ku gobernatooraha waa qabiil, xildhibaanada yimidna waa qabiil. inta marka waxa la isku qanacay xaaladii qabiil kale lagu mashquulsan maana wax ku saabsan Hirshabelle iyo wax ku saabsan mustaqbalka gobolka Hiiraan ummadaas degana dhibaataysan lagama hadlahay ilaa hadda. wax dhibaato hadii marka ummad wada socoto Hiiraan wada leh ee meesha timaado koo waxa laga bilaabahay dhibka jira yaa laga bilaabay saacadan waa dhamaale. xildhibaanada iyo sanatarada ka soo jeeda Hirshabelle Hiiraan kaliya ku maxaa Hirshabelle ka soo jeedo waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha sidoo wasiirkaba u sheegay in arintaas ayada sida ugu wanaag badan loo yimaado dadkan ummadan maxaan ku yiraahdaa dhibaatada ay haysato. ugu dambeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u yeertay sida warbixinta lagu helayo safiirkeedii dalka Kenya. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kenya ayaa degdeg ugu yeertay in dalka uu ugu soo laabto safiirka dowladda Kenya u fadhiya
maxamuud axmed nuur tarsan xilli ay kasii daraysay xiisada labada dal. go-aanka loogu yeedhay tarsan ayaa daba socda cabasho wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya u dirtay dhigeeda dalka kenya kadib qoraal lasoo dhigay bogga twitter-ka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya oo somalilan dal loogu yeedhay. war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee soomaaliya ayaa lagu sheegay axaddii shalay in wasaaradda u yeertay danjiraha kenya u fadhiya soomaaliya lucas tombo. wasaaradda ayaa war-saxaafadeedkeeda ku sheegtay in danjiraha gacanta loo geliyey warqad cabasho ah oo ku aadan fariin dhinaca twitter-ka oo wasaaradda arrimaha dibadda kenya ee xadgudub ay ku tilmaameen inay samaysay. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kulamo kala duwan waxa uu ka wadaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud. kulamada ayaa la sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya uu la qaadanayo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi dhuusamareeb isagoo arrimo dhowra kala hadlayo. ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa su-aale ay weydiiyeen dhallinyarada uga jawaabay waxaana uu sheegay inay u muuqato yodidiilo ay soomaaliya ay helayso islamarkaana ay jirto fursadii ugu wanaagsaneed oo uu sheegay inay tahay mid ay ka faa-iideysan doonaan dhallinyarada soomaaliyeed. dhallinyarada ayaa ra-iisul wasaaraha ugu mahadceliyay dadaalka hagar la-aaneed oo uu gelinayo sida ay hadalka u dhigeen ka guulgaaridda dib u dhiska dowlad goboleedka galmudug waxaana u ballan qaadeen inay qeyb ay kaga aadan ay qaadan doonaan dib u dhiska hay-adaha dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale kamara dhalinta gogasha dib u heshiisiinta ee la dhigay magaalada dhuusamareeb.